السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سكورة مصحابتنا في عنتهين صباح ونكسة ما يدلي هاي مر لبعض مرسل تحت كسر دواد الشانل كيغا إدي أنا نقرن مقاعيغا وفاضمة ناصر علي رمضان كريم رمضان مبارك إلى هاي نقاقبل الصون كينا إن شاء الله نحو هاي عبادتنا إلى هاي نوعد كايو صبر بدنا الله نصيو إلى خير كرمضان تاينا وضسيو دمانتين بميل كستون شوغنو markaa kusoo dhawaada channelkayga mawduuca maanta aan baranaynana waxa weeyaan ama topic aan maanta idiin sido waa sida loo dhiso kalsoonida markaad dhibaatooyin badan aad la kurantid qaabkeed u dhisaysaa kalsoonidaada sidaan wada ognahayba noloshu waxyaabo badan baa jira caqabado badan baa jira oo qofka hoos u dhigta horumarkiisa naftiisa yacni dadaalkiisa waxaasoo dhanba marka waxaan baranaynaa waxyaabaha lagaga hortagi karo ama aad isleedahay waad ku soo kicin kartaa kalsoonidaadii waayo iska hawlo badan tahay saan idiin sheegayba qof walbana wuxuuna qorshaysan ayaa marmarka qaar ku dhaca mararka qaar qalad aad gashay ayaad yacni aad kalsoonidaada ku lumaysaa mararka qaar guul darro ama waxaad hiigsanaysid ku guul daraysatay ayaad qalbi jabad la kulmaysaa ama hami aad lahayd ayaad waayaysaa ama hawl aad qorshaysatay oo islahayd wad dhamaystiri kartaa ayaad iyadna aad ku guul daraysanaysaa oo sidaad u qorshaysatay waxna kugu dhacayn mararka qaar ii sheegay qoysasyaa ku kala baabaa mararka qaar xilli adag baad galaysaa ama halka financialka ayaad ka fikiraysaa yacni nolosha waayaheegu badan yahay wayna iska hawlo badan tahay sidaan wada ognahayba marka sida ugu fudud ee kalsoonidaada aad kor soo qaadan lahayd ayaan maanta aan baranaynaa oo wax dee qofka uu ka xishoodana ma aha haddii ii sheegay aad caqabad ay kula kulanto ama ay wax kugu adkaadaan ama qalbi jab kugu dhaco dee dumarku sidoodaba way u nugul yihiin waxyaabahaas oo hamigoogii iyo noloshii adduunka kala haayeen way ka hadhaan xataa walaahi ta aakhira xataa mararka qaar way iloobaan waayo adduunkii aakhira isku xidhaan marka lama baahna inaad yacni aad waxaasoo dhan aad yacni naftaada u canaanatid naftaada dib u riixdid naftaada aad mar walba aad hoos u dhigtid marka aad rabtid inaad adduunkii aakhiraba aad horumar ka gaadhid waxaa loo baahan yahay kalsoonidaada inaad dib u soo qaadid oo dariiqooyin baa loo maraa dariiqooyinka inaad martid weeyaan ood aad naftaada runta u sheegtid ood ka dhaadhicisid dhacdada dhacday ama aad aqoonsatid waxyaabaha kugu dhacay waxay ka mid yihiin inaad kalsoonidaada waa qodobka koobaad kalsoonidaada aad kor ugu soo qaadi lahayd isleedahay dee yacni waxbaad ka qaban kartaa ood isleedahay waad bedeli kartaa halkaaga waad ku soo noqon kartaa yacni wallaahi dumarku intooda badan waxyaabaha kama hadlaan oo dee ahmiyadna ma saaraan ismana idhaahdaan kolka khalaas yacni wixii aad u socotay dibbaad u soo ceshan kartaa ama dibbaad naftaada usoo dhisi kartaa dibbaad wax u qabsan kartaa ya marka looma baahna adigoo nool inaad isdishid waxay idhahdaan no die no life dhexdhexaad baa ku jirtaa yacni naftaada waxbana kumaad soo kordhin dadkii kugu xeeraana waxba kumaad soo kordhin qalfoofkaa taagan baa tahay marka waxaan baranaynaa maanta waa mawduucaas inaan aan idin yara fahansiiyo dhowr qodob oo ka mid ah oo idin caawin doona ciddii maskax leh way fahmi kartaa ciddii kalena rabin inay naftooda ay kor soo qaado kalsoonideeda way iska dayn karaan iyagana laakiin aday kugu xidhan tahay mar waliba qofka bini'aadamkay ku xidhan tahay inaad naftaada aad hoos u dhigtid iyo inaad naftaada aad kor u soo qaadid oo waa run way adag tahay yacni qofku markay dhibaatooyin badan lasoo kulmo ama dhacdooyin fara badan lasoo kulmo inay kalsoonidiisu dee hal mar ay soo kacdo hal marna wax dee lagu hagaajiyo ma jiro wax walba wuxuu leeyahay step by step in loo maro aayar adigoo ii sheeg aan isdaalinayn ismashquulinayn haddana waa adduunyo oo waxaa loo baahan yahay dadaalkeyga inaad keentid wax waliba ood qabanaysid ood niyadda gelisid niyadduna waa muhiim waxaan niyad haddaad u haynin shay walba ood gacanta ku haysid oona niyad jirin ma qaban kartid
marka niyadaada waa inaad kasoo go'do waxaan aad qabsanaysid ama naftaada u qabanaysid ama awlaadaada u qabanaysid ama reerkaaga u qabanaysid waa ina waxaan niyada ka yimaadaan ood iska dhaadhicisid ood aqbashid xaalad kasta ood ku jirtid ood ku sugan tahay muhiim ma aha halkaad joogtid muhiim ma aha maxay heeday waxaad haysatid muhiim ma aha haddaad isheg xitaa aad resource haysan adigayna kugu xiran tahay qof walibana dee bani aadamka qofba nooc sibuu u abuuray isku wada mid maaha dadku haddana waxaa loo baahan yahay inaad maxayd aad bal isku daydid dadka qaar waxay raadsadaan markay de kalsoonidoodu ay lunto inay dad kale hay raadsadaan oo des kor usoo qaadi kara dadka qaar waxay doontaan maxayd dhinaca diinta u cararaan oo diintaas ayay iyaguna way ka raadiyaan awood yacni kalsoonidooda ay kusoo qaadan karaan dadka qaar waxay sameeyaan maxay ahayd familigooga qofka ugu dhow ayay la hadlaan oo de caawimaad siin kara qofkan wax adag weeyaan wallaahi wax yar ma aha qofku markuu kalsoonidiisu ay lunto yacni waqti bay qaadanaysaa inuu qofkan ku aqoonsado dhacdada ku dhacday yacni inuu aqoonsado uu haddana kor isku soo qaado waqti badan bay ku qaadanaysaa iyadoo sidaas haddana waxaa lagaaga baahan yahay in aad dadaashid ood maxay heedeed ood naftaada u naxariisatid ood istiraahdid weli waad nooshaho maad dhiman aakhira ma tegin weli adduunyadii baad joogtaa yaa waa inaad wax walba ood yacni xitaa aad isleedahay waad kusoo kobcin kartaa naftaada aad u qabatid ama buug akhri ama podcast dhegeyso ama xadiis dhegeyso ama quraan akhriso ama tuko cibaadeyso yacni waxyaabahaasoo dhan iimaankuna waa muhiim qofka hadduu iimaan laayahay wallaahi noloshuu ka dhacayaa laakiin haddaad iimaan qabtid noloshaada waad soo ururinaysaayoo kalsoonidaadii iyo wixii oo dhanba korbaad soo qaadi kartaa qof walibana dee dadkoo dhan isku wada mid maaha way kala liitaan dadka qaar ii sheegay way kala adag yihiin marka ilaahay naga dhigo kuwii adag ee adigoo nool adduunyada jooga wax qabsan kara yaa ubadkaaga wax u qaban kara waa inaad kor isku soo qaadid oo naftaada kor usoo kicisid ood ii sheeg maxayd aad dadaashid yaa wax waliba ii sheegay bani aadan baan nahay de wax kaasoo hor istaagaya ma waayaysid mar waliba haddana waxaa lagaaga baahan yahay adiga inaanad niyad jabin inaad maxayd kalsoonidaadii aanad waayin inaad caqabad kastoo kusoo hor istaagta iyo cid waliba ood ka tabanaysidba aad sida intoo soo hor fadhiisatid aad istustid inaad wax qabsan kartid inaad weli nooshahay inaad dhimanin dadka qaar baa wallaahi jecel inay ku arkaan yacni inaad liidato oo mar waliba aad balanbalayso ood rafaadayso ood dhibaatoonayso oo la arko murugadaada oo la arko maxayd oohintaada oo la arko rafaadkaaga dadkaasoo dhan yaa inta xun baa la dhahaa dadkaas waa dadka ii sheegay dadka xunxun ee jecel qofka dhibaatadiisa ku farxa laakiin adiga lagaaga baahan yahay inaad runta isku sheegtid muraayada hor istaag oo runta isku sheeg waxaad tiraahdaa naa waxaan kugu dhacay waryaa waxaan kugu dhacay soo noqon ma leh yaa waa ka gudubtid oo isku sheegto oo tiraahdid halkan maanta taagan yahay waa inaan ka dhaqaaqo uma baahni inaan dib u sii eego wixii igu dhacay waxaan halkaa ka sii raamsado oo dhahdo maxay baa igu dhacay kii kala igu dhacay kan baa igu dhacay waa inaad cashar waxaan ku noqdo od kor isku soo qaadid adduunyada sida waxa loo sameeyay maxay ahayd waa imtixaanadayna ka mid tahay qofka bani aadamka ku dhaca dhibaatooyinka ku dhacaya qofka kalsoonidiisa ay lumayso adduunyada imtixaankay ka mid tahay imtixaankaasina waxaa la rabaa inaad baastid si aad ugu dadaalisid waxbarashada iyo shaqadaba ina shaqadana lagu dalacsiiyo waad u dadaashaa soo maaha si aad ugu dadaalisid waxbarashada iyo shaqadaadaas rabtidna heelahaad ka gaadhid naftaadana kalsoonideeda waa inaad ka shaqaysid ood kor usoo qaadid maalin walba ka shaqaysid maalin kasta maahan wax kugu qaadanaya week ama 2 week way kula soconaysaa noloshaada inta ka hadhay oo dhan qof kasta oo dhaawac soo gaadha ama dhibaato soo gaadha ama qalbi jab soo gaadho ama ku dhaca maxay financial problem ku dhaco u baahan yahay siiba hooyooyinka kale iyagu way u nugul yihiin waxyaabahaas markaad uur leedahay oo kale waxyaabo badan oo maxay aad xamili karin baa jira oo iyaguna u baahan inaad ka shaqaysid oo dawada keeni ma haystaan dawooyin iyo waxba lama siiyo dumarka ama lama teekar garayo laakiin halkan way ka duwan tahay cidii laakiin rabta inay naftooda kor u soo qaado sidaad ugu dadaalaysid baan ku leeyahay inaad heshid salary fiican oo shaqadaada fiicnaato oo lagu dalacsiiyo yaa ama markaad ku jirtid heer waxbarasho eed mar walba u dadaalaysid inay darajaadkaagu sareeyaan waa inaad naftaadana uga shaqaysid sidaas oo kale waayo naftaadan xaq bay kugu leedahay
ogowna xasuusno qofow maalinka aakhiro wallaahi waa lagu weydiinayaa naftaada waxaa lagu odhanayaa why aad naftaada aad sidaa u gashay ya ma waxaad odhanaysaa waxa u sabab ahaa ii sheega qofka waxa u sabab ahaa hawshaas waxa u sabab ahayd hawshaas waxaa lagama aqbalay naftaada xaq bay kugu leedahay gaar baa loo xisaabinaya awlaadda aad dhashayna haddaad tarbiyadeyn weydo ama aad xaqooga siin weydo ama noloshooda siin weydo iyadana gaar baa lagugu xisaabin doonaa aakhiro ya mas-uuliyaduhu way badan yihiin inagu waxaan eegnaa adduunyada intaan ku noolnahay maxay ahayd maadigan baa la eegayaa lagu mashquulsan yahay iyo dadkan iska eeg kan kale iska eeg hebelkan iska dhis hebladan kale iska dhis adigoo xaaladaadii gudahaba ay baabaasan tahay marka waxaa lagaaga baahan yahay naftaada inaad ka bilowdid mar waliba inaad ka shaqaysiisid naftaada ood horumarkeyga gaarsiisid dhinaca maskaxda dhinaca jirka meel waliba inaad maxayd kasoo dhistid adiga ayaa lagaaga baahan yahay oo qofkayna ku xidhan tahay kalsoonidaadana hadday dhimato ogow inaad nolosha ka dhacday qofow dumar iyo ragba haddii ay kalsoonidaadu kaa dhimato nolosha waad ka dhacday oo waxma dhaantid qofka homelesska ah ya ama ii sheegay darbi jiifka ah naftaada kalsoonideeda ka shaqee waxbarasho haddaad baranaysid haddii aad maxayd naftaada aad kor usoo qaadaysid haddii aad ii sheeg dhinaca diinta aad kasoo dhisaysid iimaankuna waa muhiim diinta haddaad kasoo dhistid waa adkaanaysaa oo yacni qof leecaya ma noqonaysid dee oo yacni ii sheeg maxayd dhibaatooyinka xitaa ayna waxba saameynayn oo ma kala jeclaanaysid dee markaasoo kale qof waxaa tahay gudaha ka dhisan ya waana muhiim qofku inuu mar walibana uu runta isku sheego uu yidhaahdo aqbal waxaan uu kugu dhacay laakiin khalaas way tageen ka tallaabsoo soco adduunyadan ma istaagaysa ilayno adunba dib isku riixay adigunbaa haraya adigunbaa kalsooni darradaadii dhibaatooyinkaagii iyo maxay ahayd hamigaagii humuumtaadii isla harayo dib iskula harayo haddaad iscanaantid mar walibana ood ii sheegay dib baad isku riixaysaa kalsoonidaadana hoos ba usii dhacaysaa mar waliba muxuu ahaad waa inaad kala saartid dhacdadaada iyo aqoonsigaaga ya wixii kugu dhacay wuu dhacay waanad la kulantay waana ii sheeg wax tegay qofka aad tahayna ma bedeli karto dee waayo qofka aad tahay iyo wixii kugu dhacay waa laba kala duwan maxaa markaa ii sheegay adigu aad tahay adigu aanad ahayn waa khaladkaaga ii sheegay aad soo gashay ama taariikhdaada ama maalintaada xun ama dagaalka kumeel gaarka ee naftaada kula jirtid ya ogsanowna mar waliba inaad tahay qof karti badan qof mustaqbal leh qof ii sheegay wax waliba bedeli kara oo naftaada hagaajin kara inaad tahay mar waliba naftaada u sheeg dib u dhiska iyadoo loo marayo guulo yaryar maxaan uga jeedaa markaa waxaan uga jeedaa dad fara badan baa jira oo maxayd markay ay niyad jabay ku dhacda ama ay ku dhacdo maxayd kalsooni darro aan sirrita kasoo kicin oo qol isku xidha oo maxayd aan dadka ka hadha oo dadba aanan dhexgelin waxaa jira dad xitaa shaqada istaajiya waxaa jira dad maxaahayday markay ay bulsho soo dhex galaanba aan ku dareemin inay habi yihiin oo ka dhex baxa waxaa jira maxaahayad inay dadku maxaahayad xitaa dharka iska bedeli waayaan ay meedhan waayaan marka naftaada markaad rabtid inaad soo hagaajisid waxaad ka bilaabaysaa horta adigu soo kaco adigu ismayd markuu qofku naftiisa uu nadiifiyo uu dhar qurux badan uu xidho waxay ka mid tahay qofkaas kalsoonidiisiibu soo celinayaa waxaad samayn kartaa xitaa hawlo maxayd kaa dayacnaa haddaad laba shay aad soo qabatid kalsoonidaadii way soo noqonaysaa ogow oo naftaada u sheeg inay kalsoonidaadii soo noqonayso laba shay xitaa aad soo qabatay maanta dhan in badan baad ka dhex baxday dadkii inaad iisheed aad soo muuqato yacni qof oo diyaar ah oo soo muuqdo oo dadkii soo yara dhex galayo oo is arkaya naftaadaba inaad isbedelaysid taasina waxay ka mid tahay inaad dib u dhisaysid kalsoonidaadii luntay ya kalsoonida sidaan idiin sheegayba maaha wax hal maalin lagu dhisi karo waa wax waqti qaadanaya ilaahow way kugu dheeraanaysaa xitaa hadday doonto laakiin waa inaad ka shaqaysid ood eegtid maanta shalay saad ahayd iyo maanta saad tahay isbarbar dhigtoo tiraahdid maxaa maanta bal isakii bedelay ood isku fiirsatoo tiraahdid nayaa waan soo hagaagayaa waryahay waan soo hagaagayaa ood adigu runta isku sheegtay oo tiraahdid waa anigan wax baan soo qabtay maanta anigii waan ismayray waan hagaajistay waan soo baxay waayahay waan tegay shaqadii laba shay baan soo qabtay yaa
adoo ku qorshaysnaa inta wax badan inaad qabatid oo intaasoo dhan ba aad ka mashquulsanayd adduunyada aad ka dhex baxdayba waa alxamdulilah waa inaad ilaahay u sujuudido tiraahdo maasha allah alxamdulilah intaa man qabsaday ilaahay adaa mahadle ilaahay iga dhex saar mugdiganaan isgeliya anigoo nool yaa dad badan baa wallahi jira iyagoo nool dhintay dad iyagoo nool dhintay way buuxaan waxayna waayeen kalsoonidoodii qaabka u soo kicin lahaayeen ee u soo hagaajin lahaayeen bay waayeen yaa waanad awoodaa waanan hubaa inaad awoodid qofka dhegaysanayo dumar ama rag ahaw waad awoodaa inaad kalsoonidaada dib u soo dhistid ood hagaajisid ood naftaada kor u soo qaadid waad awoodaa gaar ahaan weliba dumarka ayaan la hadlayaa haddii ay maxay ahayd ay ilmo dhalaan ama laba ay dhalaan waxay moodaan adduunyadii khalaas inay soo dhammaatayba yaa adduunyadu way dhammaatay khalaas ubadkaa ku mashquul oo isla hadhaan dee waxaana u dheer problemyada qaar biil isku eryanaya qaar isku eryanaya maxay ahayd iskuulkii caruurta qaar isku eryanaya maxay daasadii caanaha ilmaha qaar isku eryanaya kiradii guriga yacni dhibaatooyinku way badan yihiin dumarka haysta wallaahi yaa rag badanna way dayaceen ii sheegay mas-uuliyaadkoogii marka dumarkaas waxaan leeyahay iyagana noloshu way socotaa weli waad nooshahay maad dhiman kalsoonidaada soo cesho ilmahaagaad wax u qabatide haddaad bilaa kalsooni tahayna ilmahaaga waxba ma qaban kartid naftaadana already wayba half dad inbaa dhimatay ina qalfooftan des intan maxaaha jirkan jooga un weeyaan laakiin gudaha waad ka dhinsan tahay gudahana waa inaad soo noolaysiisid saad ilmahaaga wax ugu qaban kartid naftaada wax ugu qaban kartid taas waa iga talo maxay heeday de ciddii is-og dhibaato qabta ayagana waa inay naftooda ay kor u soo qaadaan baan leeyahay naftaadana si ixtiraam leh oo la hadal oo degan oo wax ugu sheeg naftaada codkaaga ma ogtahay codkaaga gudaha inuu yahay maxay ahayd naqshadeeyaha kalsoonidaada waa inaad bedeshaa 3 shay oo naftaada aad ku tiraahdid waana nidhahnaa run haddaan idiin sheego dumarow ama ragoo waan isticmaalnaa canaan fara badan oo nafteenna aan inagu liidayno oo inagu la hadhayno oo qeyrkii naga reebtay waxaan nidhahnaa maxaa waan ku guuldaraysta waxaas laakiin waa inaad ogaatid inaad wax baranaysid weli maad guuldaraysan waxbaad baranaysaa waxaan kaloo nidhahnaa ma qaban karo tani waa inaad tiraahdid waan xoog badan oo waan qaban karaa ood isku daydid waxan xataa haba ku hagaagi waayaba laakiin waa inaad isku daydid oo tiraahdid waan qaban karaa anigu maan filan yacni waxyaabihii kugu dhacan ama meel baad u shaqo tagtay kaba soo qaad hami weyn baad lahayd hamigii weynaa yacni dib baa laguu soo celiyay waxaa tiri anigu maan filanayn ama waxbaa kugu dhacay sidan maan filanayn ama nolol baa kaa xumaatay waxaas tiri anigu sidan maan filanayn calacalba halkaa gashay dee ogsoonow inaad naftaadaad u sheegtid maalin walba waan korayaa maalin walba waxbaan baranayaa maalin walba waxbaa igu soo kordhaya caqligayga u weynaanayaa maalin kasta oon soo tooso waxbaa igu biiraya inaad naftaada saa ula hadashid yaa naftaada waa inaad ula hadashid sidii qof aad jeceshahay oo kale qofkaad jeceshahay ama ilmahaaga si naxariis looda hadlaysaa waad soo dhaweynaysaa waad kolkoolinaysaa maxaa kuu diida inaad naftaadana saad u yeeshid wallaahi bilaahi waad la yaabaysaa mararka qaar waxaa lagaga baahan yahay oo kale inaad isku hareeraysid ood mar walba ku dhex jirtid dadka arkaya xoogaaga ama kartidaada waa inaad dadkaana aad isku hareeraysid kalsoonidu waxay kordhaa markaad dad aad ku dhex jirtid maxay positive ah oo hagaagsan oo asxaab fiican ama dad aad xitaa dadkaad la shaqaynaysid way ku jiraan waa inaad ku dhex jirta dad mar waliba ku dhiirigelin kara ama ku xasuusinaya qiimahaaga yacni qof inaad tahay kartile qof wanaagsan inaad tahay qof dabeecad fiican inaad tahay qof wax qaban kara inaad tahay yaa nolosha xitaa ii sheegay dhinaca wanaagsan kaa tusaya inay noqdaan dadkaasaad ku dhex jirtid dhiirigelinta dhinaca koritaankaaga wax kaagala qaban kara oo dad wax fahmaya inay yihiin dayo ilbax ah waa inaad ku dhex jirtid kuwaasina maxay ahayd waa inaad heshid dadka saxda ah ee markaad faraxsan tahay kula dalbaadegi kara waa inaad ku dhex jirtid dadkaasina waa dadka kala garatid dadka qaar baa xitaa kalsoonidaada kaasii nuugayaba oo hoos kuula sii dhacaya dadkaasoo kale waa laga fogaadaa waana ii sheegay maxay ahayd dadkaa aad raadsatid mararka qaar bulshada saxda aad ku dhex jirtid waxay ka qayb qaataan noloshaada kalsoonideeda iyo wanaaggeega iyo koritaankeyga waa inaad taqaanid dadka aad la jaanqaadaysa ama aad la soconaysid inay yihiin dad sax dad nool dad kartile dad wax qabsan kara adigana wax kula qaban kara inay yihiin
laakiin haddaad ku dhex jirtid dad kula haraya ama lugta ku qabanaya ku jiidanaya yaa ma noolaan kartid kamana bixi kartid maxayd hoggan yar isku dhex riday eed ka dhex bixi kar laada ay ismoodaysid inaad qaraqantay waad ku dhex jiraysaa mar walibana xasuuso guulahaagii hore si aad kalsoonidaada imika aad dib u soo kicisid guulahaagii hore waa inaad xasuusatid oo tiraahdid waxaad ka badbaada waxyaabo aad hore u malaysay inay ku jabin doonaan waxaad ka gudubtay caqabado aad u balbalaaran oo macquul ahayn dib u eeg markaa waxaad dib u eegtaa waxyaabiyaad kasoo gudubtay iyo waxyaabiyaad soo qabsatay si kalsoonidaan dib kugu soo noqoto waa inaad tiraahdid ma aha inaad halkaas joogto laakiin naftaada xasuusi mar waliba haddii aan hore u sameeyey waa inaad tirahdid haddii aan hore u sameeyey oon soo qabtay hawshaas caynkaasa imikana maxaa ii diiday inaan qabto waa markaad naftaada aad runta u sheegaysid xasuusinaysid inaad guulo hore soo qabsatay eed kor isku soo qaadisid naftaada kor soo qaadisid ama kalsoonidaada kor soo qaadisid ay ka mid tahay inuu qofku maxay ahayd uu xasuusiyo kiisii hore si kalsoonidiisan usoo noqoto qofka haddaba maxaad samaynaysaa waa inaad hore u socotid si xaraga leh adigoon culays dareemin ama cadaadis dareemin uma baahnid inaad degdegto waay bogsashadu waxay qaadataa waqti ama kalsoonida inay kugu soo noqoto waqti bay qaadanaysaa uma baahnid inaad degdegtid tartiib aayar baad iska soconaysaa naftaadana waxaad uma baahnid ama cid kale ama qof kale inaad wax u caddiso ama wax u sharaxdo oo tirahdid dee ya arkaay maxay baan qabanayay arkaay aad istustid dadkana uma baahnid naftaada ka dhaadhici bes naftaada u sheeg inaad wax qabsan kartid aad socotid ood nooshahay ood soo noolaatay oo kalsoonidaadii kuu soo noqotay adigoo xaragoonaya yacni noloshaada hagaajiyey adigoon cidna waxba u sheegin dadkana ku jeesjeesayn dee dadka qaar baa waxay sameeyaan dee xitaa wax hagaajinayaanba dadka istusa oo maanta dhan boodbooda halkan baanu booday arka halkan kalenu booday arka oo dadka xitaa ku dhaga hadla noocaasina inaad noqotid looma baahna waa inaad qof aayar sidii lagugu bartay aad ahaatid oo laakiin naftiisii korinaya oo hore u socda waa inaad noqotid yaa kalsoonida aad dhisaysid mar labaad la dhisanaa waa tu weligeed sii jirayso mar dambe aan baaba'ayn anaa idinka ballan qaadataa sidaas aad mar labaad aad dhistay mar dambe ma burburi doonto saasay u adkaanaysaa waayo waxyaaba badan baa kasoo gudubtay waad soo noolaatay berigii ama ceelkeed ku dhex jirtad kasoo baxday yacni waxaad tahay qof kale oo cusub maanta oo taagan adigii oo dib u jadiidoobaad noqotay ood soo noolaatay marka lama baahna inaad dadkana xitaa dadka qaar baa ku dul kibra dadka markaaba oo kibro oo dee hawlo kala sii gala inaad nooca noqotidna lama baahna hambalkaaga iska ahow laakiin naftaada kalsoonideeda dhis waa inaad garatid dadkaad la soconaysid ma waxbay kula qaban karaan maha mise maya ma waxbay may kula harayaan hadallada la macnaystaa anugu heer imika waxaan gaadhay oo qofka markaan aan la shaqaynayo ama aan asxaab nahay ama waxaan miisaamaa qofkan kalmadaha kasoo baxaya ya ma dhabbay ka tahay mise waa qof yacni iska samaysanaya dee saaxiibnimadan iyo xataa kelmadda qofka uu kugu odhanay maarag waa inaad dhadhansatid inaad habeeyaca iska socoto aad noqotid maaha inaad u fiirsatid dadka aad la socotid ma dad sax ah mise waa dad yacni kula haraya dee waa taas waa iga talayadana intaasina markaa si tartiiba aayar noloshaada usoo wad kalsoonideeda usoo wad soo hagaaji naftaada markaad hagaajisid ilmahaaga wax u qabanaysaa reerkaagana waxbaad u qabanaysaa ya haddaas tiraahdid waan ku dhex jirayaayo oo dadkii masaga dhex jiraya dadkii toxigii ama dadkii naftaada la hadhay ama kalsoonidaada sii ridayeyba looma baahna dadka inaad kusii dhex jirtid waa inaad ka dhex baxdid meesha kuugu wanaagsan is leedahay halkan baad ka helaysaa yacni waxyaabaha kaa dhiman oo kula korin kara adoo xitaa ka dalban xitaa caawimaad bay-adad ku dhex jirtid way ku xiran tahay kalsoonidaada ku xiran tahay waxay ku xiran tahay koritaankaaga ku xiran tahay bay-ad iyadaba dhinsan dad ku dhex jirtid weligaa ma hagaagaysid godkaas isaga jiraysaa markaa waxaan kusoo gabagabeynayaa fiideogan maanta muxuu ahaaye dib u dhacyadan aad la soo kulantay ee noloshaada aad la soo galgalatay ma aha macnaheedu inaad tahay qof daciifa waxaad tahay qof bani aadan ah waxaad tahay qof noloshiisa dib u dhisaya kalsoonideeda dib u dhisaya waxaad tahay qof ii sheegay raba inuu
qof dhammaystiran uu noqdo noloshiisa inta ka hadhay ya markaad noloshaada intaasoo dhan aad dhistid maxaa hagaag waxaad noqonaysaa inaad qof noloshaadii hore tu ka sii wanaagsan oo adag ayaad noqonaysaa markaa looma baahna inaad maxayd aad dib isku dhigtid mar labaad kolka khalaas waad soo gaadhay pointigii aad lahayd nolosha ama confidencekaaga waad soo hagaajisay waxaana tahay qof adag waxaana tahay qof ii sheega maskax leh waxaad tahay qof nool waxaad tahay qof adag oo wax walba qaban kara naftaadana u sheeg mar waliba inaad tahay ii sheega qof faa'iido leh oo naftiisii ilmihiisii reerkiisii bulshada iyo familigiisa wax kusoo kordhin kara inaad tahay waa inaad u sheegtid naftaada mar waliba inaad dib isku dhigin oo maxayd aad dib isku celin oo wixii aad la soo kulantay ee kaa nuuga maxayd kalsoonidaada dhanna albaabada aad ku xidhid waana iga talo marka waa kaas videoga halkaas kusoo gabagabeeyay aad baad u mahadsantihiin maalin wanaagsan baa idin leeyahay ramadaankana ilaahay inoo fududeeyo inta ishay noo hadhayna maca salaama hana iloobina channelkayga inaad subscribe saartaan share and like iyo comment fiican aad iga tagtaan aad baad u mahadsantihiin asxaabta maca salaama